laakiin ta ugu daran ee halista leh dadka warwarka badan ku abuurtay waa in heshiiska inay shirkadihii tartamayay suuqa ku tartamayay adeegan wada lahaa ay ku heshiyaan in qiimaha meel wada joojiyaan taasi waa mid keeni karta in adeegyada kale iyo alaabta kale dadka iibiya ganacsatada ee hadda tartamaya in iyaguna heshiiyaan kuwii bariiska keenayay kuwii caanaha keenayay quuto daruuriga dadkii u hayo dhamaynta meel wada fadhiistaan si profitkooda ama faa'iidadooda kor ugu qaadaan inay qiimaha jaraan taasi dastuurka way ka soo horjeedaa oo dastuurka dalku wuxuu leeyahay suuq waa xor suuqa xor oo caleed waxa weeye wax kastoo keenaya monopoly ama in cidi u heshiiso suuqa qaadato kaligeed waa ka mamnuuc marka waxa la yiraahdaa heshiisyada la yiraahdo tartan diidka la yiraahdaa waxay si toos uga soo horjeedaan suuqa xorta waxa xalaaleynayaan kootadii monopoly baa dhacsi automatic ku dhacay way labadan shirkadood waxa rabaan inay tartamaan haddii markaa mid kor u qaado ama hoos u dhigto waa suuq qofku tu doonaa buu tagaya marka dambena suuqu wuxuu istaagayaa meel shirkaduna faa'iido dadkuna aan culays ku ahayn ganacsi kastaana saas ku socda iyo adeeg kasta haddaad eegtid internetkeena iyo telefoonadaynu isticmaalno halkay ka soo bilaabmeen markay yimaadeen qiimahooda suu sareeyay maanta isku mid maaha waxaana mar walba keenaya inuu hoos u socdo marka dambe meel istaago labada shirkadoo aanay kusii tartami karaynin wuxuu ahaa tartanka labada shirkadaha dalka ka jira ka shaqeeya shirkadii baa intay qol hoosta ka xidheen oo fadhiisteen sicirkii gooyey dadku ka warwarsan yihiin ka dagaalansan yihiin diidan yihiin waa taas wey haddaba heshiiska markay laba shirkadood oo tartami lahaad u heshiyaan shacibka dowladdu doorkeedu muxuu yahay cidda ugu weyn ee doorka lihi waa dowladda wey cidda ay tahay inay kala ilaalisaan waa iyada because maadaama waajib ku tahay suuqa xorta ay ilaaliso wax kastoo monopoly keenayo inay ilaaliso iyadu ka joogsataa maxaa ka mid ah matalan dowladdu sida aan loogu ogolayn inaan ugana yeeleen inta iska soo toosto in iyadu sicirka u goyso ama qiimaha u goyso shirkadaha oo aan ugu qasbi karin ayaana iyaguna u goyn karin suuqa jaraya wax kale iibsiga jaraya adeeg wax la kala iibsanayo ayaa jaraya marka dowladdu waa regulator bay ka tahay ama waa dhexdhexaadiye la rabo inay ku ilaaliso suuqa xornimada ku ilaaliso wax kastoo xornimada joojinaya ka hor imanayana dowladdu markaa inay talaabo ka qaado halkan dowladda uga furayd doorka ugu weyn iyadu uga furay waayo cid kastaaba way doonaysaa ganacsada kastaa uu jeclaan lahaa ganacsadaha la tartamaya intay gacanta isgeliyaan inay wax ku heshiyaan roodhidu meel wada istaagto bariisku meel wada istaago qudradu meel wada istaagto leerku meel wada istaago wax walba in hal meel istaagaan way jeclaan lahaayeen dowladdu markay laba kamani heshiinayaan iyo shacibkoo kale ay u heshiinayaan dowladda doorkeedu waxa weeyaan inay dowladda lafteedu ay la socodka iyo korjoogteynta ay leedahay maadaama ay leysamada iyadu siiso sida xeerarka isgaarsiinta iyo xeerarka waddanku ay dhigayaan dowladdu doorkaasi may caddayn inay qayb ka ahayd ama in lagu wargeliyey in heshiiska noocan intuu dhaco shirkaduhu ay bulshada ay ku dalacaan qiimaha marka taa lafteeda miyaanay noqonaynin in awooddii dowladnimada ay kamaniyada gacantooda ay ku qaataan oo dowladda lafteedii aanay rool ku lahayn barta waxay ogtahay shirkaduhu laba miduun inay ahayd inay ama yaraysteen dowladda oo aanay waxba iskaga tirinayn ama inay isku haleynayeen labada midun weeye waayo go'aanka intaa leeg ee saameynta dalka intaa leeg ku yeelanaya ee dhulgariirka intaa leeg abuuraya iyadoon dowladdii la ogeysin oo lagala tashan oo la naaqishin oo la rogrogin inay gaadhaan arrin dawa maahayn waxayna muujinaysaa inay tahay hadda dowladdu inay doorkeeda qaadato ma ahayna tahdo dowladdu guddi baa noo saarayna waxa guddiyada loo saari jiray lala meeraysan jiray maaha waa wax u baahan la gooyo dadkii baa kacsan dadkii baa soo taagan dadkii baan yeeli karaynin dadku waxay ka warwarayaan noloshoodii bay ka warwarayaan hooyada halkaa ku iibinaysa inta yare muuska hor fadhida ayaa warwaraysa caruurta boqolkiiba 60 ilaa 70 dhalinyaradeenu ma shaqayso gidaar bay iska fadhiyaan internetkaas iska isticmaalaan ama dadka kula xiriiraan ama waxa ku bartaan ama ku madadaalaan in loogu tago cunaha la qabto de waa daandaansi yagii la daandaansanayo leeyahay suuqa soo baxo naga hor yimaaday shaqo looma abuurin lacag lama siiyo taageero kale ma haystaan dhaatadii yareeday noloshooda ku maareynayeen waa loogu imanaya marka waxaan dadka qaban weeye waxa la sameynayo